السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كني شانات جرافيك ديسانكا يانيغو عصيرادا عشر كنن شانات إن شاء الله تعالى. وحن عشر كافرات كسو براني غابكا لوغو أميو ستيكر كاغا أما ورقدادا وحن صفران دونا مانتا هدبا سيدي عادة دينو أهيد ستيكر islamarkaana waxaanu dhigan doonaa tooliska iyo interfaceka hore ee markaanu stiikarka soo furano. halkan ayaynu ku dhufan baynu nidhi islamarkaana daaqadan ayaynoo soo bixi markaynu tan ku dhufanno, ama waxaynu ka soo furan file ayaynu tegi doonaa islamarkaana new baan ku dhufan, ama waxaynu isku qaban doonaa control iyo xarafka n, dabeedna daaqadan ayaynoo soo bixi doontaa. halkan waxaynu leenahay test ayaan leenahay, test 0 ayaan ka soo qaadayaa. halkanna waxaan ka soo dooran doonaa international paperka, islamarkaana halkan waxaan ka dooran doonaa warqadda A4ka. colorkeeda waxaan ka dhigi doonaa, maadaama aanan printing ku sameynoo daabacaynin, RGB color ayaan ka dhigi doonaa insha Allah. kadib okay ayaan leeyahay. intaasi waa intaynu hore u qaadanay casharka afraad ku soo qaadanay sida warqad loo soo furto ama board loo soo furto. haddaba intaynaan dhisaanka guda gelin waxaanu isla eegi doonaa insha allahu tacaala interfacekan hore ee Photoshop dhisaanka. interfacekan hore waxuu ka kooban yahay 4 qabcadood ama 4 meelood ayuu ka kooban yahay oo muhiim ah, mid kasta muhiim tahay. tan hore insha allahu tacaala haddii aynu ku bilowno waa tooliska loo isticmaali doono insha allahu tacaala inaan wax ku dhisan karayno. tooliskani waxa uu isugu jiraa qayb loogu talagalay sawirada ama imageska oo lagu hagaajiyo sida waxa weeye blurriska iyo waxa weeye jiidista iyo wax ka jarista iyo waxyaabaha ayaa waxa weeye ku jira iyaguna, iyo qayb dhisaanka loogu talagalay insha allahu tacaala. haddaba qaybta dhisaanka loogu talagalay ayaa aan si guud u dul marayaa anigoo waxa weeye aan hoos ugu sii dhaadhacayn, oo waxaan rabaa marka aan isticmaalayno inaad si fiican ila fahanto insha Allah. marka waa guud mari doonaa kuwaynu ka isticmaali doono ee ugu badan insha Allah, anigoo waliba taagaya kuwa ugu badan ee markaas aynu ku badan doono. tooliska kuwa ugu badan ee aynu isticmaali doono insha Allah waxaa kamid ah kan oo loo yaqaano move tool. waana tooliska shay kasta ama shape kasta markaad soo qaadato ee aad halkan ku samayso, markaad rabto inaad iskaga goyso ama aad iskaga reebtid ila wixii waa ku dooran yahay aad ku dhufan doonto, waana ka aad ugu isticmaalka badan tahay insha Allah. waxaan kaloo dhigan doonaa insha Allah tacaala isaguna kuwan oo waxa loo yaqaano rectangle tool loo yaqaano. haddii aad right click tidhaahdana waxaad ka heli doontaa waxyaabo fara badan oo ay tahay xidigtii, linekii, polygon toolkii, eclipse toolkii iyo rounded rectangularkii. iminka sidaad u jeedo ugaas mid ka ugu horeeya ayaan soo qaatay, laakiin ma rabo inaan dhisan gareeyo, inaan guud maro un baan rabaa. ta ugu badan aynu iyaduna isticmaali doono tiidan ayaa ka mid ah, ama waxa weeye typekii ama waxa weeye textigii oo qoraalkii iyo waxyaabaha aynu ku dhigi doono. inagoo haddaan right click nahna waxa weeye ka heli doono insha Allah qayb waxa weeye horizontal iyo qayb vertical intaba, qayb horizontal type tool iyo qayb vertical type tool oo waxa weeye farti oo marsa u taagtaagan oo dherer loo qorayo iyo mar iyadoo chief loo qorayo, intaba aynu ku samayn doono. waxa iyaduna kamid ah kan oo waxa weeye sizeska isaguna cropkii oo kale oo mararka qaar haddaad u baahato aad ku samaynayso. waxa isaguna kamid ah pen toolkan oo waxa weeye isaguna shaybabka aan halkan aynaan ka heli karin aynu u baahanahay sida qaaradaha oo kale markaad sawirayso aad u isticmaalaysid shaybabka aad u qalqalooca ee waxa weeye aynaan markaasi samayn karayn ama halkan ka heli karaynin inaynu ku samayno. waxa iyaduna kamid ah insha Allah qaybtan loo yaqaano ee waxa weeye skisadii, waxa af Soomaali ahaan aynu ku naqaano skisadii oo kale, oo iyadana waxa weeye laba shape ama laba sawir markaan isdhex gelinayno oo kale mararka qaar u isticmaalayno insha Allah. kuwaas kale ugu muhiimsan, kuwan kalena laga yaabaa mararka qaar inaynu wax uga baahano, kuwaas ayaa ugu muhiimsan tooliska. waxaanu soo gali doonaa insha Allah qaybtan loo yaqaano iyaduna qaybtan kale ee waxa weeye iyaduna kuwan ka kooban propertieski iyo layerki iyo characterki iyo colorki iyo kuwani waa kuwo meesha la soo dhigto
waxayna ku xidhan yihiin oo loo isticmaalaa shaybiska aynu halkan kasoo isticmaalno ee halkan markaasi soo dhigano inaynu waxaweye propertieskoodii wax kaga bedelo sida waxaweye iminka warqadii inaynu wax ka bedelo oo kale haddaan rabno inaanu jiifino oo warqadii xagga kale u rogno waxaweye waa ka helaynaa inaynu haddana taagno waa ku ceshan karnaa waxaanu samayn doonaa insha allah inaynu layeriskii markaynu shape kusoo darno ee halkan keennaba in layeriska uu kusoo biiro isla markaana aynu markaynu doonno xidhi karno markaynu doonnana furi karno tusaale ahaan kan inaynu qarin karno qaabkaaynu isu dul saarsaarayno inaynu markaa shaybabku farabataan grouping ku samayn karno oo intaynu dhowr dooranno hal group iskaga dhigi doonno insha allah waxyaabahaas oo dhan ayaan layeriskana ka helaynaa karakterka inaynu farta wax allaale wixii far la xidhiidho oo dhan hadday kalarkeedii tahay hadday seeskeedii tahay hadday haydkeedii tahay waxyaabahaas oo dhan iyo farta nooceedii wixiiba inaynu ka dooranno iyagana insha allah oo halkan waxaweye aynu kaga shaqayno kalarkii oo kale haddii waxaweye aynu shape rabno inaynu kalarkiisi bedelo waa ku bedeli karnaa isagana intaasi ayaa ugu muhiimsan isagana propertieska layeriska karakterka iyo coloriska wixii kale aynu u baahanana waxaan kaga soo darsan karnaa qaybtan loo yaqaano windowska marka qaybtan waxa loo yaqaanaa qaybtan workspace ayaa loo yaqaanaa marka workspacekan waynu abuuran doonaa insha allah mid aynu magaceena kula baxno ayaynu abuuran doonaa insha allah haddii alla ka dhigo casharka xiga ku abuuran doonaa qaybtan iyaguna waa menuyugii waa qaybtii laga save garaynayay oo kale waxa weeye aad documentigaaga markaad dhamaystirto aad ka save garaynaysay waa qaybta aad open odhan kartid ee aad kusoo furi kartid markaasi design hore aad u diyaarsaneed oo qof ka soo qaadatay si aad wax uga bedesho oo bs kugu save garaysnaa ama tif oo ah formaadada wax laga bedbedelaa oo iyagana aynu dib ka baran doono insha allah editingka ayaa iyaguna ka mid ah oo waxa weeye ka qayb qaata iyaguna warabka ama waxa weeye shape-ka sida loo qalqaloociyo si uu shape qurux badan u noqdo image-ka ayaa iyaguna ka mid ah oo waxa weeye inaad haddii seeskan ka qaldamay aad dib u sees garayn karto waxa weeye kan sidoo kale inaad rotation ku samayn karto oo aad rogrogi karto layeriska ayaa iyaguna ka mid ah insha allah kuwan kolley aada uguma baahnin layeriska iyo type-ka ayaa ka mid ah oo waxa weeye farihii kula taxalluqa iyaguna waxaa ka mid ah selectigii oo waxa weeye all layer select markaad rabto ama control a markaad rabto waxaanoo layeraa inaad hal mar isku doorato isla markaana hal group iskaga dhigto iyagana waxaad isticmaali doontaa selectiga filterkan inta badan sawirada ayaa loo isticmaalaa oo iminka waad aragtaa wada inactive sawirada ayaa loo isticmaalaa waxaa ka mid ah 3D-gii buller gallery-gii waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo sawirka ayaa lagu qurxiyaa 3D-gan qoraalada ayaa lagu sameeyaa iyagana oo wax lagaga bedbedelaa view-gan oo kale waxa weeye wax laga soo weyneeyaa warqadaada haddii aad rabto inaad soo weyneyso zoom plus baad leedahay haddii aad rabto inaad yaraysana zoom minus ama waxaad isku qaban kartaa control iyo minus ayaad isku taaban kartaa dabeedna waa fogaanaysaa warqadaadii control iyo plus haddaad taadana waa ay soo dhowaan doontaa insha allah sidoo kale horizontalki iyo waxa weeye waxyaabaha ayaad ku dhigi doontaa isagana iyo fit inaad soo leekaysiiso intan aad soo leekaysiiso warqadaadii si ay si fiican kuugu muuqato waxaa kaloo aada ugu muhiimsan qaybtan sare qaybtan loo yaqaano windowska oo ah kuwa aynu kuwan kasoo xulan doono insha allah sida layeriskii waxaas oo dhan wixii aad uga baahato aad soo qaadan doonto halkan isla markaa aad soo dhigan doonto tusaale ahaan haddii aan idhaahdo gradatiga aan idhaahdo saa ugu dhufto waa kan halkan ayuu igu soo biiri doonaa waan soo qaadi karaa drag and dropping halkan hoosaan keensan karaa halka ugu sarreysaan geysan karaa qaab kasta oo ku samayn karaa marka qaybahan waa halka haddii ay naga baxaan aan ka soo ceshan karno ee waxa weeye aynu dib uga soo ceshan karno haddii alla ka dhigo bal marka insha allah casharka xigana waxaynu ku baran doonaa qaabka loo sameeyo workspace-kan ama waxa weeye toolskan intaad u baahan tahay inaad gaar u samaysato new workspace insha allah qaybtan waa qaybta bodiga ah ee waxa weeye wax lagu dhisan garaynayo ama waa miiska
designka lagu dejinayo ee shape kasta marka la soo qaado si qurux badan la isugu dhigdhigayo isla markaana waa qaybta waxa weeye la daabacan doono hadhow ee waxa weeye soo bixi doonta haddii aad daabacanayso iyo haddaad social media dhigayso intaba intaasi ayuu casharkeenan shanaadna ku kooban yahay insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi